2012 waxa ay Soomaaliya u ahayd xilli isbedel taariikhi ah bilow safar soo socday 4 sano waa markii uu xilka madaxweynenimo la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Xasan inta aanu xilka ku guuleysan waxa uu soo galay loolan adag oo ugu dambeyn uu ku hantay guusha. sababaha uu ku guuleystay waxa loo tiriyaa in ay ahayd qorshihiisii hoggaanka kaas oo ka koobnaa 6 tiir oo uu ku sareeyay baahiyihii uu dalku qabay. way dhamaatay muddadii la doortay madaxweyne Xasan haddaba 4 sano kadib maxaa isbedelay. dawladdu waxa ay bilowday in ay waajahdo xal u helista caqabadaha hor yaalay tan ugu muhiimsan ayaa ahayd ammaanka. intii lagu guda jiray isla 2012 dawladda uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh oo kaashanaysa bulshada iyo saaxiibada caalamiga ah waxa ay dhaqaajisay duulaanno xoogan kuwa oo shabaab looga xoreeyay dhulkii ay xukumayeen marka laga reebo deegaano kooban. waa garan kartaan meesha ciidamada Soomaaliyeed kala joogaan iyo ummadda Soomaaliyeed kala joogaan hadda ayagoo muxuu ahaa nabad ku nool inkastoo dadkaas nabadiidka ay dhibaatadooda iyo waxooda muxuu ahaa ay leeyihiin dhalinyarada la khalday ay leeyihiin ay dadka shacabka ku dhibaateynayaan laakiin ciidamada Soomaaliyeed waxay gaarsiiyeen ayagoo kaashanaya ciidamada kaleeto Amisom waxay gaarsiiyeen muxuu ahaayeeto meel aan markii hore looga riyoonayn in dhaqso ay u gaari doonto ummadda Soomaaliyeed xagga amniga iyo xagga horumarkaba. in ka badan 30 degmo ay haysteen 30 degmo Soomaaliya kamid ay haysteen maantana waxa ay haystaan ay ku hareen kama badna 5 degmo. Soomaaliya marka laga hadlayo waa 90 dhowr degmo marka Soomaaliya guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliya marka awood ciidan ahaan maanta waxay ku soo hareen wax aan ka badnayn 5 degmo. ka saarista shabaab deegaanada ay xukumayeen waxa ay dawladdu ku dhinac waday howlgallo lagula dagaalamayo amni darrada dhulka xorta ah oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho. madaxweynaha ayaa amray in la burburiyo in ka badan 50 jidgooyo oo dhex taala caasimadda tallaabadaas oo markiiba ay u riyaaqeen dadweynaha Soomaaliyeed. howlwadaag isbaaro isgooska bakaara isbaaro afartii jirdiin isbaaro sanco isbaaro oo maleeshiya beelood in walba jufo u tiin haddana maantaan kula hadlayo ilaahay wuxuu nagu nimciyay hal boonaan goosana hal boon ama xabruweynaha laga gooyo ama madiinaha laga soo gooyo ama kaaraha laga soo gooyo ama suuq xoolaha laga gooyo halkaas boonaan magaalada ku maraa marka firqa la soo koobi karo ma sha Allah way ilaahay noo nimciyay. magaaladan madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay hal la qaado in la qaado markuu ku dhawaaqay 2000 iyo horaantii 2013 waxaa tiilay 60 isbaaro ka badanaa tiilay maanta hal isbaaro magaalada xamar meel checkpoint isbaara oo Malaysia heebtooda aan la aqoon ay u taalo ma jiraan bal waxaad arkaysaa dawladdii hoose iyo tributaryadii iyo canshuurihii oo la qaadayo waxaad arki kartaan isbedel ka dhacay. si guulaha laga gaaray ammaanka ay u noqdaan kuwa waara dawladdu waxa ay tayeysay korna u qaaday tirada ciidamada qalabka sida iyada oo la unkay cutubyo gaar ah oo u tababaran ka jawaabista weerarada argagixisada iyo beegsiga madaxda shabaab. tallaabo kale oo loo qaaday dhanka amniga ayaa ahayd in madaxweyne Xasan Sheekh uu siyaasad ka dhigtay in kooxda shabaab loo fidiyo cafis inta ogol inta diidana lagu ciqaabo dambiyada ay ku jiraan taas oo markiiba keentay in horjoogayaal waaweyn iyo maleeshiyaad fara badan ay ka soo baxaan shabaab iyaga oo ka faa'iideysanaya cafiska madaxweynaha. waxaana laga xusi karaa Sheekh Xasan Daahir Aways madaxii sirdoonka shabaab oo loo yaqaanay Zakariya Maxamed Saciid Atam oo xukumayay aaga Galgala iyada oo sidoo kale ay soo xaroodeen boqolaal maleeshiyaad ah halka ay dawladdu tallaabo ka qaaday horjoogayaashii ka madax adeegay cafiska madaxweynaha kuwaas oo uu ka mid ahaa madaxii kooxda shabaab Axmed Cabdi Godane hogaamiyihii gobolada Jubbooyinka ee shabaab oo lagu magacaabi jiray Dulyadayn iyo kuwa kale. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saan ku sheegay tayeyntiisii kamida in ay ka howlgalaan meelo badan oo dadkaas nabadiidka ah ay muxuu ahaayeeto ay dadka ku dhibaateynayeen ama shacabka ku dhibaateynayeen inay howlgal ka sameeyaan dad badan oo ayaga kamidana oo dadka nabadiidka kamida waxay bedeleen fikradoodii way bedeleen oo waxay go'aansadeen
inay shacabka Soomaaliyeed ama dadkooda iyo ummadooda ka mid noqdaan. sida uu ahaa ballanqaadkii madaxweynaha iyo waajibaadka dowladda waxaa laga sugayay dowladda madaxweyne xasan in ay dalka ka hirgeliso nidaamka federaalka kaas oo ka mid ahaa mas'uuliyadaha waaweyn ee dowladihii kala dambeeyey haddaba aan dib u xusuusanno heerkii uu dalku ku sugnaa xagga federaaleynta iyo dib u heshiisiinta bulshada sidii dabcan xukunkii militariga 1990kii markii la reeyay kadibba dood badan waxay ka jirtay qaabka ay Soomaalidu dowladnimadeedu dib u abaabulayso oo isu maamuli karto doodaad badan baa ka jirtay dabcan dad badan waxay qabeen in nidaamkii meesha dhexe laga maamulayay uu ahaado dad kalena waxay qabeen in wixii wax xaliyaba ay ahaayeen dadka oo xamar laga wada maamulayo dadkuna ay u baahan yihiin maamulka in la baahiyo iyadoo xaajadu ay halkaas joogto waxa uu madaxweyne xasan hoose ka xariiqay in aanu ka cabsan waajibaadkiisa uuna ku dhaqaaqo sidii uu u hirgelin lahaa ballanqaadkiisii ma ahayn mid fudud sababtoo ah horey looma aqoon shaki guud ayaana laga qabay qabaa'ilka iyo siyaasiyiintana mid kasta waxa uu u ordayey in ay xaggiisa u dhammaato sidoo kale kama marna faragelin shisheeye balse caqabadahaasi iyo kuwo kaleba ma hor istaagin madaxweyne xasan dadaal aan daal ku jirin iyo dood heer kasta ah dowladdu waxa ay ku guulaysatay in ay dhiso 4 maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle halka ay guddiyo gaar ah gacanta ku hayaan maqaamka caasimadda Muqdisho oo ay tahay in ay yeelato nidaam u gaar ah taas oo micnaheedu uu yahay in dalku 4 sano kadib u dhisan yahay hannaanka federaalka hirgelinta nidaamkan waxa uu dawo u noqday caqabado waaweyn oo hor yaallay dalka sida dib u heshiisiinta qabaa'ilka oo hadda u midaysan hab deegaan ballaarinta dowladda oo gaartay dalka oo dhan iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo yeeshay matalaad siyaasadeed ugu dambeynna madaxweyne xasan sheekh ayaa curiyay madal midaysa madaxda heer gobol iyo tan heer qaran taas oo go'aamisa arrimaha qaranka halkaas oo ay ku soo afjarantay sanado badan oo ay kala qoqobnaayeen isla markaana abuurtay muuqaal dowladeed oo fidsan afartii sano ee la soo dhaafay dowladda oo madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh ilaa 2004 markii baarlamaankeena oo go'aan ku gaaray in dowladdeenu dowlad federaal noqoto taasoo ah in waddanka la federaaleeyo madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisu ma ahayn kuwa xaalad kasta oo adag ay ka mashquuliso howlaha kale ee u yaallay si ay dalka uga dhigaan mid ka soo kabsaday dhinac kasta mid ka mid ah kuwa uu saldhigga uga dhigtay siyaasaddiisa madaxweynuhu waxa ay ahayd in la abuuro nidaam maaliyadeed oo hufan lagu kalsoonaan karo isla markaana la jaanqaadaya heerka caalamiga ee maaliyadda maalmo yar kadib doorashadiisii madaxweynaha waxa uu bilaabay hirgelinta qorshihii maaliyadda tallaabada koowaad waxa ay ahayd in dowladdu ay yeelato miisaaniyad qarantii ugu horreysay tan iyo 1991kii waxaana loo yeeray khubaro Soomaaliyeed oo aqoon u leh dejinta miisaaniyadda qaran taas oo markiiba la dejiyey lagana ansixiyey golaha wasiirada iyo baarlamaanka isla markiina la dhaqan galiyey halkaas oo ay ku xirmeen wadooyin badan oo ku furnaa sida loo isticmaalo lacagaha dowladda markii 2002 ama 2012kii bishii September markii dowladdan la sameeyay markii ugu horeysay waxa la yiraahdaa mataqaanaa muxuu ahaa money budget oo ah 3 bilood October November December ee sanadka ugu dambeysay in lagu dhaqmo budget macnaha marka budget la waxa waaye budgetka waxa loogu talagalay in qiyaas la sii sameeyo dakhliga oo mataqaan la heli karo iyo qiyaasta qarashka dakhligaas marka la helo meesha lagu bixi karo waxa ilaahay mahadiisa wax lagu faani kara ah markii laga soo bilaabo dowladii kacaankii ee dhacday 91dii iyo 2012 inaan la sameeyo xisaab xir in ay noqoto markii ugu horeysay ee la sameeyo xisaab xir taasna waxa iska leh mahadaha ka gaadho hogaaminta saxda ah oo noo sameeyay madaxweynaheena iyo annagoo macnaha raacnay tilmaantii la bixiyay intaasi kuma filnayn dowladdu waxa ay markiiba dardar gelisay xoojinta hay'adaha qaran ee qaabilsan maamulidda iyo ilaalinta maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda xafiiska hantidhowrka xisaabiyaha guud iyo bangiga dhexe iyada oo la dejiyey nidaamkii ay u baahnaayeen hirgelinta nidaamkan ayaa durba soo jiitay hay-adaha caalamiga ee maaliyadda oo kalsooni iyo wada shaqaynba la bilaabay hay-adaha maaliyadda dalka taas oo dowladda u sahashay in lagu aamino kaalmada caalamiga ee lacageed ee lagu kaba dowladda يعني العكتان مركا هيئتها عالمية أي كأمينة الصومالي وحي هاجرت مركو هيئة برايفة أيها بوسكاس بحجران ساس درتيد
hay-adahanu waxay ogyihiin xeerarkaas caalamiga ah in ay la shaqeeyaan qasab inay tahay hay-adaha dowliga ah mar haddii la caddeeyo marka in uu jiro bankiga dhexe uu jiro xisaabaadkiisu ay sax yihiin dowladdu aysan ahayn dowlad ku meel gaar aysan ahayn waxaa qasab ah marka in la soo wareejiyo marka maamulkaas oo dhan la soo wareejiyo marka waa arrin sax ah waanaan isleeyahay qasabayba ku ahaydba in ay waa soo dahday dabcan soo dahday laakiin alxamdulilah hadda way jirtaa waxaan kaloon samaynay waxa la yidhaha FMIS oo lagula xogta maaliyadda waxa waaye macnaheedu waxa waaye Somali Financial Management Information System waxaa lagu soo dhaqdhaqaaqa xogta maaliyadda waxaanu ku guuleysanay in hal dakhli oo dalka soo gala ha ahaado dakhliga cashuurta gudaha ama deeqaha dibadda hal dakhli oo dalka soo gala inuu meel kala mari karin in FMIS-kaas lagu macaamilo la geliyo ma ogeyn waxaan ku guuleysanay in hal lacag ah aysan bixi karin ilaa FMIS-kaas ay marto waa ku wada shaqeynaa dhammaan xisaabiyaha guud oo hanti dhowrka mataqaanaa muxuu ahaa bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda iyo dhammaan hay'adaha dakhliga qabta ama hay'adaha qarashka isticmaala xafiis kasta yaalo wuxuu yaala xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxweynaha warfaafinta arrimaha dibadda xafiis kasta meesha ugu geynay waxaan u geynay qolo kasta systemkii iyo qalabkii kumta ku shaqaysan lahaayeen bangiga dhexe oo ka faa'iideysanaya aragtida madaxweynaha ayaa awood u yeeshay in uu soo ceshado mas'uuliyadihiisii isaga oo bilaabay in uu hago nidaamka lacagaha dalka oo ay ka mid tahay in uu sharciyeeyo bangiyada iyo xawaaladaha gaarka ah taas oo noqotay fursad ay ku shaqayn karaan si waafaqsan hanaanka lacagaha ee caalamiga ah ugu dambeyn bangiga dhexe waxa uu hadda awood u yeeshay in uu bangiyada caalamka oo dhan la macaamilo isaga oo iminka dhammaystiray qorshayaal badan oo ay ka mid tahay in markii ugu horreysay uu soo daabaco lacago shilin Soomaali ah oo dalka oo dhan si rasmi ah uu u yeesho burburkii kadib iyo in lagu ballaariyo xarumaha bangiga guud ahaan Soomaaliya dowladdu markii ay xaqiijisay in uu sugan yahay nidaamka maamul ee maaliyadda waxa ay u dhaqaaqday in ay tayeyso ilaha dakhli ee dalka meelaha laga sameeyay horumarka taariikhiga ah waxa kamid ah garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ay dowladdu u xil saartay shirkad Turki ah oo ka shaqeysa garoomada taas oo si dhaqso ah isbedel baahsan uga hirgelisay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho tani waxa ay abuurtay jawi aad uga bedelan kii uu ku sugnaa garoonka aadan cadde isbedelkaasi ma ahan mid ay dareemayaan kaliya hay'adaha dawladda ee ka shaqeeya howlaha garoonka xitaa dadweynaha ka dhoofa garoonka iyo kuwa ka soo daga ayaa waxa ay dareemayaan jawi aad u degan oo la mid ah kuwa garoomada caalamiga in la diyaariyay system daatada lagu aruuriyo oo dadka yimaada xogtooda lagu aruuriyo waxaa la keenay visa stickerkii la keenay oo isagana la soo diyaariyay systemkeedii iyo sharciyadeedii waxeedii oo dhan wadata waxaa sidoo kaleeto la diyaariyey adeega la xiriira socdaalka ee airportka oo si fiican isagana loo dayactiro loo diyaariyey waxaa la tababaray shaqaalihii shaqadaas qaban lahaa oo iyaguna si heer sare ah loo soo tababaray oo maanta diyaar ah oo qof walbaba shaqadiisa uu yaqaano oo mar kastana la jaan qaada isbedelada tiknoolajiyadda iyo waxyaabaha soo kordhay inta badan waxaan dhigi karnaa marka 4 sano la soo dhaafay socdaalka Soomaaliya wuxuu sameeyay horumar aad u weyn oo muuqda oo aan qarsanayn 2002 alifkii mar aan aniga baxay marna dad soo deganayeen yaani runtii waxa arkaysa askarta iyo shacabka xataa lama la kala kasayrin laakiin hadda waxa waay shacabkana yaani meel nadiif ah istaagayaan albaab gooniye qabaan askartana meel gooniye qabaan booliis iyo askar dhowr nooc arkaysa oo nidaamsan yaani labiskooda quruxdooda xitaa qaabka askarta kula hadlayso ma sha Allah way ku soo jiidanayaan dib u dhiskan la mid ah ayay dawladdu ka samaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso iyada oo laga dhigay garoon caalami ah oo aad u qalabeysan ugu dambeynna garoonkaasi waxaa xariga ka jaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Boosaaso fursad la mid ah dadweynaha reer Muqdisho ayay taasi siisay dadweynaha reer Boosaaso oo hadda dareemaya in ay haystaan garoon weyn oo ay ka dhaxleen siyaasadda dawladda 2 kiiloomitir iyo bar dhawaad garoonkan ah oo waliba si casri ah oo adag oo quality-giisu aad u sareeyo u dhisan waa hambalidu weyn oo aan ku wada faraxsanahay kiiloomitirka ka dhimanay ilaahay idinkiis gacmahan u laabanayna waana keenaynaa daadira insha Allah standardka airportada ugu dambeeya ugu waaweyn 3 kiiloomitir iyo bar ku dhawaad inuu ahaado garoonka Boosaaso uu noqonayaa garoonka Soomaaliyeed meesha ku yaalana
kii carraana meeshaasaan la hiigsanaynaa kuwa hadda soo dhowaadayna dhammaystirku u baahanna dhammaystirkooda ilaahay idankiis waan u istaagaynaa ka gaabin mayna haddii dekadda caalamiga ee muqdisho ayaa iyana dowladdu ka hirgelisay isbeddel baaxad leh oo keenay koror dakhli oo aad u ballaaran iyo adeegyo hufan oo la jaan qaadaya caalamka. hawshaasi oo timid kadib markii ay dowladdu ku wareejisay maamulka dekedda shirkad turki ah. isbeddelkaasi waxa uu culays badan ka fududeeyey dadka la macaamila howlaha dekedda sida ganacsatada wax dhoofiya ama kuwa soo dejiya, gaadiidleyda iyo weliba muruqmaalka ka howlgala dekedda muqdisho. dakhligu maalinba maalinta ka dambeeya ama bilba bisha ka dambeeya wuxuu sameynayay sarakac. sarakacaas oo ka imaanayay aqoonta iyo qalabka iyo xirfadaha la isticmaalayay ee aan ka ahayn mid ku qotoma kororka badeecada. marka waxaan dhihi karnaa 2012 marka loo fiirsho 2016 boqolkiiba 200 sarakac ayaa jiray dhinaca dakhliga. in alaabtii China ka timid iyo India iyo caalamka meelaha ugu fogfog ee Dubai transit ku ahayd mararka qaar ay si toos u imaanaysa iyadoo aanan meel la soo marin, si sharaf leh ku imaanaysa dekedaha caalamka xisaaban aan ka mid nahay. awal laakiin ma aan la xisaabin caalamka. maanta faa'iido aan waxay tahay in ninka China ka soo diray isla saacadda uu soo diray saacadda dekedana imaanaysa uu soo gudbi karaa. marka la isku geeyo habaynta nidaamka maaliyadda, xoojinta hay-adaha maamulka lacagta iyo tayeynta ilaha dakhli ee dalka, waxa ay keentay koror aad u weyn marka la barbar dhigo dakhligii soo geli jiray 2012. iyada oo laga faa'iideysanayo tayeynta hanaanka maaliyadda, waxaa markii ugu horreysay ay dowladdu hirgelisay in shaqaalaha iyo ciidamada dowladda ay ku qaataan mushaaraadkooda sida ay u kala aqoon badan yihiin isla markaana u kala sarreeyaan, halka 4 sano ka hor aanu jirin nidaam lagu saleeyo bixinta mushaaraadka. sidoo kale waxaa aad u kordhay tirada shaqaalaha rayidka ah ee dowladda oo aan ka hor hoggaanka madaxweyne xasan sheekh lahayn habraac loo maro qorista, ruqsaynta, dallacsiinta iyo darajo dhimistooda. ma jiri jirin shaqaale rayid ah oo xaqooda si toos u qaata, ma jiri jirin. maanta waxaan ku guuleysanay in shaqaalaha dowladda ay noqdaan kuwa register garaysan, mishaarkooduna cayiman yahay oo wixii xaq u leeyihiin ay helaan. olowma marka qaarkood soo daaho laakiin haddana xaqooda way helaan. marka intaas hortay ma jiri jirin. iyo waxaa kaloo muhiim ah qarashada dowladda ay bixiso inaan iska bixinin oo lagu bixiyo qoondo iyo miisaanad lagu bixiyo. wixii miisaanad ka baxsanna aanan dowladda aysan bixin karin. saraakiisha waxaa loo sameeyey waxa la yiraahdo scale ama darajada qof walba darajadiisa inuu xuquuqdiisii ku helo. waxaa noo dhiman hadda aan qorshahooda wadnaa si walba si uu u helo saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda, qof walba sidii darajada ay ugu heli lahaayeen xuquuqdooda ayaan qorshahaas wadnaa. tan saraakiisana meel baa la dhigay, ama ha ka soo daahdo ama is ka soo daahan, laakiin wuu yaqaanaa qorshaha iyo waxa uu leeyahay. laguma fakarayn muddo ka hor in qorshahaas uu hirgelayo ama hirgeli karo. marka laga yimaado hay-adaha dowladda, waxaa horumar weyn ku tallaabsaday dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee dalka, iyada oo laga faa'iideysanayo deganaanshaha xagga amni iyo siyaasadda dowladda ee dhiirigelinta dhaqaalaha. ayaa dalka laga hirgeliyey 4 sano ee lasoo dhaafay adeegyo caalami ah oo ganacsi sida bangiyo, hoteelo, shirkado caymis iyo noocyo kale oo ganacsi oo aan horay u jirin. si uu u sii dhiirigeliyo ayuuna madaxweyne xasan sheekh kala qayb galay furitaanka adeegyadaasi. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ganacsatada iyo hantiilayaasha bangigan maalgeliyey ee dhaqaalihii loo baahnaa ee bangiga isu keenay. bangiga meesha ka furay waa aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa. dadka kale ee kuwii hore u sameeyeyna waa mahadsan yihiin. kuwa kale ee weli hantida haysta ee weliba dibadda ku haysta hantidana waxaan leenahay ku daysada, waddada waa furan tahay. bangiga qurxan waa kan waa shaqaynayaa. soomaaliya waa suurtagal inay ka shaqeeyaan waxyaabaha casriga ah. dalku waa nabad, maalinba maalinta ka dambeysana wixii dhiman way sii dhammaystirmayaan. hagaajinta xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya waxa ay ka mid ahayd meelaha uu sida gaarka ah u xushay madaxweyne xasan sheekh, isaga oo u arkay in ay tahay meelaha uu qaranku ka qabay baahi weyn. si loo meelmariyo aragtidaasi, dowladdu waxa ay dejisay siyaasad miisaaman oo ku waajahan sidii loo abuuri lahaa xiriir caalami ah oo sal adag, kaas oo ku salaysan hannaan 2 geesood ah. 4 sano kadib waxaa jira calaamado guul ah oo muujinaya in madaxweyne xasan sheekh uu dalku ka dhigay mid leh saaxiibo caalami ah oo haysta kalsooni buuxda. dunida oo u muuqatay in ay ku qanacday siyaasadda madaxweyne xasan sheekh ayaa u fidisay madaxweynaha casuumaad rasmi ah, gaar ahaan wadamada hoggaanka u ah siyaasadda adduunka
waxaa xusid gaar ah mudan in madaxweyne xasan uu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliya tan iyo 1991 oo booqasho rasmi ah ku taga aqalka cad ee Mareykanka halkaas oo uu kulan rasmi ah kula qaatay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. kulankaasi kadib ayuu ku dhawaaqay Mareykanka in uu aqoonsi rasmi ah siiyay Soomaaliya uuna dib uga furayo safaaradiisii Muqdisho dhowr iyo 20 sano kadib, halka dowladda Soomaaliya ay safiir u dirsatay magaalada Washington. dowladda Ingiriiska ayaa iyana dhankeeda u fidisay dowladda Soomaaliya xiriir heerkiisu uu aad u sareeyo, kaas oo ka dhashay kulankii taariikhiga ahaa ee madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaarihii hore ee UK David Cameron ku dhex maray xafiiska Downing Street, waxaana daba socday in Soomaaliya ay ku dhawaad 30 sano kadib safaaradeedii ka furatay London, halka UK ay iyana ka furatay safaaradeedii Muqdisho. dowladda China ayaa sidoo kale safiirkeeda u soo dirsatay Muqdisho, sidaasi waxa Soomaaliya ku jooga 3 ka mid ah dalalka leh quwadda loo yaqaano veto power-ka. 10 dal oo kale ayaa iyaga oo ka faa'iideysanaya xiriirka ay Soomaaliya la yeelatay quwadaha waaweyn ee adduunka waxa ay Muqdisho u soo direen safiiradooda, kuwaas oo si isdaba joog ah u tagay xafiiska madaxweynaha si ay ugu wareejiyaan warqadahoodii safiirnimo. xiriiradaasi laba geesoodka ayaa Soomaaliya u soo jeeday in ay booqashooyin aan kala go' lahayn ku yimaadaan madax uu maqaamkoodu sareeyo. xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu noqday xoghayihii ugu horreeyay ee yimaada Muqdisho tan iyo 1992 waxa uuna la kulmay madaxweyne xasan sheekh iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, taas oo tusaale fiican u ah sida ay kalsoonida dunida ugu soo noqotay Soomaaliya. waxay sidoo kale soo jeedatay caasimadda Muqdisho madax ka socota wadamo ay ka mid yihiin Turkiga, Kenya, Ethiopia, Uganda iyo wadamo kale. sidoo kale 10 wasiirro arrimo dibadeed iyo madax kale oo fariimo rasmi ah ka sida dalalkooda ayaa Muqdisho ugu keenay madaxda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa si ay u muujiso in ay tahay qaran ku taagan caga adag waxa ay dalbatay in ay martigeliso shirar caalami ah oo aan dalka ka dhicin wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii kacaanka. wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD ayaa isugu yimid magaalada Muqdisho bartamaheeda, halkaas oo ay si nabadgelyo ah ugu soo gabagabeeyeen kulankooda, waxaana ay ka soo saareen qodobo adag. iyada oo laga faa'iideysanayo fursadaasi waxa ay dowladdu mar kale gacmo furan u fidisay madaxda dowladaha xubnaha ka ah IGAD in ay yimaadaan magaalada Muqdisho. madaxweyne xasan sheekh ayaa caasimadda Muqdisho ku soo dhaweeyay hogaamiyayaasha Uganda, Ethiopia, Kenya iyo sidoo kale wasiirro ka socda wadamada kale ee xubnaha ka ah IGAD, iyaga oo halkaasi ka soo saaray heshiisyo faahfaahsan oo lagu sii horumarinayo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo guud ahaan wadamada xubnaha ka ah IGAD. shirka madaxeedyada ee IGAD inuu ka dhaco arrintaas waxaan mahadcelin gaar ah ugu jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Xasan Sheekh oo juhdi badan ku bixiyay sidoo ugu dhici lahaa shirkaas caasimadda dalka, la'aantiisna aysan suurtagal ahaan lahayn maadaama arrinta ay tahay heer madaxweyne. taasna waa lagu guuleystay. nasiib wanaag shirkii halkaan uu ka dhacay si wuxuu ku dhacay nabadgelyo ah. madaxweynayaal dhowr ahna waa ka soo qayb galeen, iyadana waxay ahayd guul taariikhi ah. maanta dalalka kambeynka soo galayo oo u baahan codadka oo ka mid ka tahay dalalka waaweyn oo Soomaaliya la soo weydiistaa maanta cod masiih nagu taageer mashruucan barnaamijkan nagu taageer. horey ma jiri jirin, xataa hadday horey u jiri jirtana waxay ku ekaan jirtay kaliya missionka kaliya, laakiin maanta consultation ila wasaaradda arrimaha dibadda ila iyo madaxtooyada ila xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa la tashi lala sameeyaa. wadamo waaweyn codna soo weydiisto. madaxweyne xasan sheekh ayaa isaga oo maskaxda ku haya caqabadaha ka taagan sida loo maareeyo deeqaha caalamiga ee la siiyo Soomaaliya oo tan iyo burburkii ahaa kuwo aan ku salaysnayn qorshe Soomaaliyeed, waxa uu la yimid aragti qaran oo ah in dunida ay bedesho qaabkii hore ee ay kula macaamili jirtay Soomaaliya. caalamka ayaana garowsaday fikirkaasi oo uu arkay mid qaadasho mudan, waxaana aragtidaasi ka dhashay mashruuc lagu magacaabay Somali Compact, kaas oo dowladdu la tagtay shirweynihii caalamiga ahaa ee lagu qabtay dalka Belgium, halkaas oo looga dhawaaqay mashruuci loo yaqaanay New Deal. sidoo kale dowladda iyada oo ka faa'iideysanaysa waxa ay shirkaasi ka dhex abuurtay qorshihii qaran ee ugu horreeyay muddo ku dhow 30 sano, kaas oo hadda diyaarsan isla markaana dhaqangeli doona sanadka 2017. I call it for a paradigm shift in the development interventions with Somalia. waxaan ku baaqay inaan bedelno
habka taageerada horumarineed ee Soomaaliya maadaama aanu habkii hore sii shaqayn karin. Ii ogolaada in aan idinkugu hambaliyeeyo idiina sheego in heshiiska aanu maanta halkan u joogno in aan saxiixno in uu yahay mid ku jaango'an baahiyaha bulshada Soomaaliyeed oo aan si wadajir ah u qiimeynay annaga iyo saaxiibadeena caalamka. madaxweyne xasan sheekh oo shakhsi ahaan ku caanbaxay fulinta adeegyada bulshada oo ay ka mid yihiin waxbarashada iyo dib u heshiisiinta ayaa waxa uu meel sare ka geliyey ajandihiisa sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyadii bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada. waxbarashada oo ah tiir muhiim u ah horumarka bulsho kasta ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay qaadatay dhankeeda tallaabooyin isugu jiray tayeynta iyo nidaaminta waxbarashada jirtay iyo abuurista noocyo cusub oo waxbarasho kaas oo fursad siinayay muwaadiniinta aan awoodin waxbarashada lacagta ah. mid ka mid ah tallaabooyinka muhiimka ah waxa ay ahayd soo nooleyntii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo si bilaash ah ay wax ugu baranayaan boqolaal arday Soomaaliyeed. halkan waa dhismaha ay hadda ku shaqayso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. 4 sano ka hor ma jirin dhismahan waxaana halkan deganaa dad barakacayaal ah. dowladda hadda jirta oo yani xasan sheekh hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh barsoor xasan sheekh ayaa in jaamacadda ummadda dib loo howlgeliyo muxuu ahaa ka shaqaysay 2013kiina waxaa dowladdu qaraar ku gaartay oo go'aamisay oo golaha wasiirada ay go'aamiyeen in jaamacadda ummadda dib loo howlgeliyo ayna dalka adeegii bulsho ee ugu qaybsaneed oo in muddo ay la maqneedna ay dib u howlgasho si adeegaas bulshada uga qabato. jaamacadda waxay xabaarsan tahay magaca dalkayga hooyo oo ah jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed taas oo sababtay inaan imaado jaamacaddan aan wax ka barto inaad jaanis u yeesho muddo oo xogaa dalka oo soo maray kabacdi in jaamacadda ummadda dib loo furo aan arday ka mid ah jaamacadda Soomaaliyeed aan noqdo fursado ay dadkii dhexe aysan helin in aan helo zaid aan ugu faraxsanahay. ilaa hadda waxaan haynaa 6 kuliyadood oo la dhihi karo waa 6 kuliyadood hadda maanta dalka ugu muhiimsanaan lahaa 700 oo arday oo kamid ah ayaa 6 kuliyadood hadda dhigata insha Allah taala oo lacag la'aan ku dhigta oo yani nasiib u helay inay lacag la'aan ku dhigtaan. ku faraxsanahay in aan helno jaamacad tayo leh oo dalkeena laga leeyahay oo wixii aan u baahnayn aan ka helayno oo haddana khaasatan waxbarashadu ay tahay lacag la'aan. dabcan waa dareemi kartaa qofka markii uu ku dhiganayo qarash laga bixinayo oo jaamacadda uu dhiganayo laakiin markii uu jaamacadda lacag la'aan helo oo jaamacad haddana tayo leh oo heer sare oo caan ah oo helo dabcan waa dareemi kartaa qofkaas xamaasadiisa inta dareen uu jecel u qabo jaamacadda. fursaddan waxaa ka faa'iideysanaya ardayda soo dhammaysatay dugsiyada sare hase ahaatee baahi taas ka weyn ayaa jirtay taas oo ah in carruur badan oo Soomaaliyeed aanay aadi karin iskuulka sababtoo ah ma haystaan dhaqaale. iyada oo taas ka jawaabaysa waxa ay dowladdu curisay mashruuca aada dugsiyada oo bixinayay fursad waxbarasho oo lacag la'aan ah. kumanaan waalidiin ah oo aan rajo waxbarasho u hayn carruurtooda maadaama aanay hayn dhaqaale ay uga bixiyaan ayuu u bariyey waa cusub waxa ayna u direen carruurtooda iskuullada bilaashka ah ee dowladda. hooyadan oo ah danyar waxa ay haysataa koox carruur ah waxa ay isku dayday in qaar ka mid ah ay u dirto iskuullada lacagta ah ha yeeshee way ka saartay iskuulkii kadib markii ay awoodi weysay in ay ka bixiso qarashkii looga baahnaa. laakiin nasiib wanaag hadda carruurteeda waxa ay heleen fursad waxbarasho oo bilaash ah oo ay dowladdu siisay. waxbarasho la'aanay ahaayeen waxna lacagaan ku bixi jiro aanan awoodin waxna waxbarashadooda hadda bilaabeen. waxbarashadii lacagooda waa bixi waayey lacag la'aantan ku doorto iyo waxbarashada qaaliga oo laga dhigo iskoolka. dowladda waxaan u dhihi lahaa inay kor u sii qaadaan waxbarashada. carruurtan oo aan haysan fursad waxbarasho ka hor mashruucan waxa ay dareemayeen markii hore in ay ahaayeen kuwa ka takooran carruurta la da'da ah ee ay dhaleen qoysaska ladan laakiin hadda taasi way dhammaatay. iyaga ayaana isku arka in ay ka nasiib fiican yihiin kuwa badan waxaana ay ku faanayaan in ay dowladdu siisay waxbarasho bilaash ah. oo aan nahay fasalka 4aad oo iskuulka Yaasiin Cusmaan waxbarashadeena ay fiican tahay waan ku faraxsanahay lacag la'aan inaan wax barto sayniska ingiliishka sida tarbiyada carabiga cilmi bulshada.
fasalkan lixaad ebil hor wax maalin baran karin guri joog ayaana waxaan dhigtay iskuulka Yaasiin Cusmaan waan ku faraxsanahay dawladda lacag la'aan waxbarasho la'aan siiyaan xukuumadda iyo madaxweynaha iyo gabdhaha aad bay maaragtay ugu dadaalayaan in caruurta aan gacanta ku dhigano oo iskuulo lacag la'aan oo sidii ay ahaan jirtay intii la karayo inkastoo caqabado dhaqaale iska jirto intii la karayo maaragtay lagu socosho. dareenkan farxadeed waxaa sidoo kale la wadaagaya waalidka iyo caruurta boqolaal macallimiin ah kuwaas oo dawladdu ay siiso mushahar inkastoo ay qabaan duruufo ay la wadaagayaan dalka haddana waxa ay ku faraxsan yihiin in ay waxbarayaan caruur Soomaaliyeed si bilaash ah. waxaan ku faraxsanahay inaan dabashada salka ka haysano oo sabuurta taagannahay oo casharka bixinayno waa ku faraxsanahay raadina waan ka nahay intaan sii jirnana oo cumrigeena jirnana waa taagnaanaynaa cashar waan bixinaynaa. aniga maanta waxaan qirayaa inay jirto waxbarasho lacag la'aan ah oo free ah oo tayo leh oo macallimiin ay joogaan oo ardada cashiro la siiyo oo maadooyinka iskoolaadka brevetka laga qaato kuwa ka muhiimsan ama lamid ah in laga qaato iskoolaadka fariiga ee hoos yimaada wasaaradda waxbarashada. intaas kuma ekayn guulaha dhanka waxbarashada ee dawladdu ay gaartay 4 sano ee la soo dhaafay markii ugu horeysay muddo 26 sano waxa ay dawladdu dhaqangelisay imtixaan midaysan kaas oo ka dhaqangalay dalka 2 sanad waxbarasho ee ugu dambeeyay iyada oo wasaaradda waxbarashada ay iminka gacanta ku hayso qorshayaal gabagaba ah oo isugu jira kordhinta adeegyada bilowday iyo abuurista kuwa cusub oo ay ka mid yihiin keenista manhaj qaran oo mid ah. dhanka kale baahida caafimaad ee ka jirtay dalka awgeed dawladda madaxweyne xasan sheekh waxa ay u kaba gashatay sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad iyada oo xoogga saartay in ay hesho qaabab si guud u wada gaari kara dadweynaha Soomaaliyeed. waxaa la ballaariyay qaabka shaqo ee wasaaradda oo loo naqshadeeyay hannaan shaqo gudasho waxaa la diyaariyay lana meelmariyay sharciga caafimaadka dalka oo fure u ah soo celinta habkii guud ee caafimaadka dalka kadib waxaa la bilaabay qaadista tillaabooyin lagu hirgelinayo adeegyada caafimaad. waxyaabaha xusida mudan ee lagu guulaystay waxaa ka mid ah dib u howlgelinta shaybaarkii dhexe ee dalka oo hadda loo dhammaystiray dhammaan agabkii uu u baahnaa. markii ugu horeysay 26 sano ka hor maalmo gudahooda lagu furi doonaa shaybaarkii dhexe ee dalka oo dhan shaybaarkaasoo runtii ay yaalaan qalab casri ah qalabkaasoo awood u siinaya shaqaalaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka inay baaraan cudurrada kala gedisan inay baaraan cuntada inay baaraan daawooyinka inay awood u leeyihiin maanta inay sameeyaan quality control. marka waxyaabahaas oo dhan waxa ay qayb ka yihiin horumarka dhanka wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba daryeelka caafimaadka guud ee dadweynaha ee dawladdu ay dadaalka ka wado. iyada oo maanka lagu hayo heerka uu dalku ka joogo dhimashada haweenka iyo caruurta xilliga dhalmada ayaa laga soo ururiyay dalka oo dhan boqolaal haween ah kuwaas oo Muqdisho lagu siiyay barashada umulisnimo kuwaas oo hadda u diyaar ah in ay dib ugu laabtaan gobolada dalka. hagaajinta garsoorka iyo cadaaladda waxa uu meel sare kaga jiray ajandaha madaxweyne xasan sheekh baahida loo qabay hannaan cadaaladeed oo hufan oo uu muwaadin kasta ku heli karo xaqiisa ayuu ku darsaday madaxweyne xasan sheekh qorshihiisii xilligii ololaha taas oo uu ballan ku qaaday in uu wax ka bedeli doono. haddaba 4 sano kadib waxaa jira calaamado la taaban karo oo iska bedelay marxaladii uu ku sugnaa 4 sano ka hor garsoorka Soomaaliya inkastoo sababa la xiriira sharciga oo madax bannaani badan siiyay cadaaladda dalka dawladdu waxa ay qaaday tallaabooyin waaweyn oo lagu tayeynayo hannaanka cadaaladda si loo ballaariyo aragtida lagu waajahayo dib u habeynta nidaamka cadaaladda. dawladdu waxa ay isugu yeertay qaybaha bulshada oo loo qabtay shirweyne halkaasi oo maalmo dood ah kadib ergooyinkii shirku soo saareen talooyinkooda. maanta marka annagu haddii aan ku guulaysanay akhyaartiinan maxaan ku radaa sharafta badan ee Soomaaliyeed inay isku yimaadaan ay talo ka bixiyaan sidee waa maxay garsoorka ugu habboon duruufaheena maanta aan hor u socon karo waxaan leeyahay waa meelaan soo gaarsiin eedda in badan oo kamid ah annaga hadda way naga hadtay adinka xaggiina ay soo jirtaa eedda kale annaga noo imaan doonta waxay tahay war recommendationskii iyo wixii wanaagsanaa ee shirka ka soo baxay dawladda inta iska laalaabto meel isaga tuurtay horteeda usii socotaa berri wayna qabataa
laakiin wixii aad samayseen markaan intaan dabaqno ay qaladaad iyo daldaloola ka soo baxaan waxaan rabnaa inaad in nalala qaadan rabnaa eed oo la yidhaahdo waan isku daynay intaanina way noo hagaagtay intaan macilal ka soo bixinaa isu keenkeena haddana aan u tashanay iyada oo la fulinayo aragtidii madaxweynaha iyo talooyinkii bulshada dowladdu waxa ay qaaday tallaabooyin hirgelineed oo loo kala qaaday 2 qorshe oo kala ah in la habeeyo nidaamka garsoor ee hadda jira iyo in la diyaariyo shuruucdii iyo hay-adihii loo baahnaa si loo dhiso nidaam cadaaladeed oo dhammaystiran dhanka habeynta nidaamkii jiray ayaa dowladdu waxa ay culays weyn saartay in wax laga bedelo iyada oo isbeddel ballaaran laga sameeyey xarunta weyn ee maxkamadda gobolka oo dib loo dhisay loona qalabeeyey si casri ah sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyey xirfadlayaal garsoor oo isugu jira madax iyo shaqaale xafiiskan xeeraalinta markaan imaanayay 32 qof ayaa joogtay 7 xeeraaliye kaliya ayuu ahaa xafiisku lahaa maanta wuxuu leeyahay 27 xeeraaliye wuxuu leeyahay 105 qof oo shaqaale ah waa la dhammaystiray dayactir dhinac walba ah hal computer ma oolin waxaa lagu shaqayn jiray typewriter oo ku tusi karaa hal miis iyo kursi fiican ma oolin faylasho dhulkay daadsanaayeen record ma lahayn archive ma lahayn xog hayn ma lahayn waxba ma lahayn maantana dadku waxay qirayaan ama adigu aad indhihiina ku arkaysaan in uu ka mid yahay ama uu la mid yahay inuu u shaqeeyo sida xafiisyada xeeraalinta ee caalamiga ah oo kale inuu u shaqeeyo dhinaca kale dowladdu waxa ay dadaal badan ku bixisay sidii loo diyaarin lahaa sharciyo hufan oo lagu dhammaystiro nidaamka garsoorka kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in markii ugu horreysay la meel mariyey sharciga maxkamadda dastuuriga ah iyada oo golaha xukuumadda uu u gudbiyey golaha adeega garsoorka taas oo dalka ka saari doonta murannada sharci oo marar badan saameeyey taas oo ka dhigan in 4 sano ee tagtay lasoo jaro masaafo aad u dheer marka laga cabir qaato halkii uu joogay garsoorka 2012 selectionkii waa la sameeyey sharcigii lagu dhisayey golaha adeega garsoorka waa la ansixiyey madaxweynuhu waa saxiixay waa sharci dhaqangal ah waxqabadka dowladda kuma koobna 6 tiir oo kaliya hase ahaatee waxaa jira dhinacyo badan oo ku naaloonaya horumar aanay haysan 4 sano ka hor arrimaha soo jiidashada leh waxaa ka mid ah bilicda qaybo badan oo ka mid ah dalka oo ay dowladdu ka hirgelisay dib u dhis tusaale fiican waa caasimadda muqdisho oo ay dowladdu ka fulisay dayactir baahsan oo intiisa badan ku dhisan isku tashi dowladda iyo dadweynaha meelaha la soo qaadan karo waxaa ka mid ah wadooyinka muqdisho oo qaybo badan oo burbur awgii aan la isticmaali jirin 4 sano ka hor hadda lagu sameeyey dib u dhis aad u ballaaran waxaa sidoo kale dowladdu ay dayactir aad u ballaaran ku samaysay in badan oo ka mid ah dhismayaasha xarumaha wasaaradaha xeryaha ciidanka xarumaha degmooyinka oo aan ku ekayn muqdisho oo kaliya sidoo kale dunida ayaa ku kalsoonaatay in markii ugu horreysay magaalada muqdisho ay ka dhistaan dhismooyin safaaradeed oo rasmi ah 25 sano kadib dadweynaha oo ka faa'iideysanaya aragtida dowladda ee horumarinta muuqaalka dalka ayaa dhinacooda u dhaqaaqay in ay hagaajiyaan dhismooyinka ay ku leeyihiin muqdisho iyaga oo caasimadda ka hirgeliyey dhismooyin qurux badan meelo lagu nasto iyo ganacsiyo kala duwan oo aan horay u jirin taas oo muuqaalkii burburkii caasimadda u beddeshay magaalo qurux badan oo soo jiidasho leh sidoo kale dowladdu waxa ay qaaday tallaabooyin lagu dhiirigelinayo isdhexgalka bulshada si ay u dareemaan kalsooni madaxweynaha ayaana bilaabay in uu dhex galo bulshada kalena qayb qaato xilliyada farxadaha dowladda si ay u sii ballaariso kalsooni abuurka bulshada una abuurta jawi ay dhallinyaradu isku dhex gasho waxa ay qabanqaabisay tartamo kala duwan oo ciyaaro ah kuwaas oo ay u daawasho tageen kumanaan dadweyne halka kumanaan kalena ay kala socdeen warbaahinta tii ugu xiisaha badnayd waxa ay ahayd ciyaarihii maamul goboleedyada oo ay isku arkeen dhallinyaro ka kala socotay gobollada dalka isku geyn dadaalka ay bixisay dowladda Soomaaliya 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu ka dhigay dalka mid intiisa badan ku naaloonaya nabadgelyo midnimo siyaasadeed oo ku baahsan waddanka dunida oo ku kalsoonaatay Soomaaliya kuna soo noqotay hay-ado dawli ah oo leh heerar kala duwan taas oo suuragelinaysa in kumanaan qof oo Soomaali ah ay ka qayb galaan doorashadii ugu horreysay muddo nus qarni ah oo si isku mid ah uga dhacaysa caasimadda iyo gobollada horumarkaas ayaa u ifinaya indhaha Soomaalida iyo saaxiibadood mustaqbal xasiloon barwaaqo ah lagu midaysan yahay halkaas oo ay ku afjarmayso rubac qarni dagaal iyo burbur ah